السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول هذا channel كان ميرا نوح maanta waxaan doonayaa inaan ka hadalno qaybaha guurka Soomaalida ama noocyada guurka Soomaalida hadba saad u taqaanaan aan bilowno. kan koobaad la bixid ama la roorid hadba sidaad u taqaano. guurkan inta badan wuxuu ka dhacaa baadiyaha walow magaaladana uusan ka marnayn. guurkan waa wiil iyo gabadh markay heshiiyaan ay israacaan isla baxaan kadibna ay aadaan wiilka gurigiisa halkaas oo markay tagaan gabadha reer ka dhalay la wargeliyo sidaan ay isku guursadaan. kan labaad dhabar garaac. guurka dhabar garaaca la yiraahdo waa guur xilliyadii hore jiray kaasoo ahaa gabadha in khasab iyo jujub lagu kaxaysto isagoo wiilku saaxiibadii intuu soo kaxaysto uu haday diidana ul inta u qaato garaaco kadibna uu sida gurigiisa ku geysto oo sida loogu daro gabadhii. guurkaasi ha noqdo gabadha inay wiilka intii uu ka soo codsaday guur ay ka diiday oo sida darteed xanaaq uu ka xanaaqay uu gabadhaas u garaacay oo maaragtay uu khasabka ugu kaxaystay ama ha noqdo mid laba nin ay ku loolamayeen gabadhaas oo midkood ka cabsaday ka kale inuu maaragtay ka qaato sidaana gabadha uu ku maaragtay ku dhabar garaacdo oo ku kaxaysto. saddex dumaal. guurka dumaalka waxaa la yiraahdaa marka naagta ninkeeda uu ka dhinto uu guursado in adeerkii ama walaalkii ama wiilka xigtadiisa si awlaadu aysan u agoontoomoobin naagtana uusan nin kale aysan u keenin ciyaalka dhexdiisa oo ciyaalkii aysan u dayacmin. guurkaas waxaa la yiraahdaa dumaal walow Soomaalidu ay uu ahaa guur ay ku xisaabtami jirtay ilaa hadda ay ku xisaabtanto oo ah ay dhahaan naagtaas anaga dumaal u lahayn. kan afraad isasiin. isasiintu waa guurka labada waalid ee wiilkii gabadha dhalay iyagu ay isu dooraan oo iyagu isa siistaan ha noqdaan saaxiibo labada waalid ama ha noqdaan dad macaarifa kadibna wiilka iyo gabadha iyagoo la tashan sida la isugu daro. kan shanaad haasaawe ama heshiis. haasaawe ama heshiis waa guurka wiilkii gabadha iyagu is doortaan iyagu ay sheekaystaan iyagu ay haasaawaan kadibna guur ku heshiiyaan oo laga soo doonto gabadha waalidkeeda loo geed fariisto guurti isugu timaado halka gabadhii lagu bixiyo wixii xoolo iyo hanti la kala qaadan lahaana halka lagu kala qaato ducadana la raaciyo. kan lixaad waa guurka la yiraahdo ku qaado. ku qaado waa wiilku marka uu gabadha quruxdeeda ama sharafteeda wax u dhimo waxa la dhihi jiray ku qaado. kan toddobaad xigsiisan ama xiskiisan. guurka noocana waa marka ninku ay ka dhimato xaaskiisa si uu awlaadiisa hooyo u daryeesho ugu helo in lagu daro gabadha walaasheedina adeerteed ama xigtada gabadha si awlaadaasi aysan hooyo la'aan u noqon. kan sideedaad qudbasiro meherxad ama masaafo. ereyga masaafo waa erey carabiya Soomaali waxay noqonaysaa fogaan. guurka noocana waa guurka wiilkii gabadhu iyagu intay heshiiyaan waalidkood iyagoon ogeyn ay isguursadaan. kan sagaalaad heerin. heerinka waa marka gabdhaha hore loo guursan waayo ay gabadhnimo ku weynaadaan inay ka tagaan deegaankay ku noolaayeen oo ay aadaan deegaan kale si ay rag u doontaan iyagoo kooxan ay israacaan. kan tobnaad sahan dumar. sahan dumar waa marka gabadhi ay soo sahansato wiil ay ka hesho kadibna gurigiisa ay timaado si loo guursado sidaana lagu guursado. kan 11aad godob reeb. godob reebtu waa guurka marka laba qabiilo colaadi dhex marto ama laba qoys colaadi dhex marto la kala qaato magtii kadib la isa siiyo oo isdhaafsadaan ama qoys ka mid ah kan kale uu siiyo gabadh ama gabdho si colaadii loo qaboojiyo oo loo helo nabad waarta. kan 12aad oo ah kan u dambeeya maxlal. guurka maxlalka la yiraahdo waa kan marka ninka iyo naagtu ay kala tagaan sharci ahaanna aysan dib isugu noqon karin naagtuna nin kale soo marta mooyaane ay guursato nin kale say keedii hore dib ugu soo noqoto waxaa la yiraahdaa maxlal. intaas waxay ahayd qaybihii guurka Soomaalida. muuqaalka hadii aad ka heshay suulka saar si aad noogu soo biirto subscribe taabo wixii fikir ah qaybta hoose faallada noogu reeb. nabad iyo caafimaad baan idinka tagay.